kulanti wanaagsan dhagaystayaal waa mar kale iyo qodobkeena faallada oo ku saabsan caawa colaadda ka aloosan deegaanka Tukaraq ee u dhaxaysa maamulka Somaliland iyo maamulka Puntland. ciidamada difaaca Puntland ayaa soo buux dhaafiyay jiidda hore ee dagaalka iyaga oo ku hubaysan hub aad u tiro badan oo isugu jira gawaarida gaashaaman, dabaabaad iyo beebeeyo. askarta iyo ciidamada difaaca Puntland ee goobta la geeyay ayaa lagu qiyaasayaa kuwa aad u tiro dhaafay. marar badan oo la isku dayay beesha caalamka iyo IGAD iyo xitaa dowladda federaalka, Puntland waa ay ka dhaga adeegtay oo waxa ay tiri inta ay taaka ka mid ah dhulka Puntland ee Sool iyo Sanaag ay ku jirto Somaliland in aysan qaadan doonin wax nabad ah. haddaba iyada oo ay dhaceen laba mar hore oo sii horeysay intii aan Ramadaanka bilowgiisii, inta la xasuusto labada xilli oo dagaal culus oo laba cisho oo halka ka dhacay, ayaa sidoo kale mararka qaar waxaad arkaysaa dagaaladii hore raadadkii ay reebeen oo ah gaadiidka dagaalka oo laga gubay oo ay halka kaga tageen maamulka Somaliland kadib iyagoo u ruqaansaday halkaas iyo Gambare. balse waxaa lagu soo warramayaa in aysan weli Puntland aysan gelin Tukaraq oo ay taagan tahay afaafkiisa hore, balse waxaa mar walba bilaaban kara dagaalka oo fooda la isku saaran yahay iyadoo markan Puntland ay aad u soo buuxisay wixii taag iyo tabar iyo hub iyo ciidanba ay haysay. haddaba asxaabteena sharafta lahay kolley dagaal laguma farxo, balse meesha